السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال يا صاحبي يلا. maanta waxaa idin tusi doonaa sida loo sameeyo 3D glass effect image and text. Marka waa arki doonaa sawirkan hadda u muuqatid oo ujeedaa so asalkiisa wuxuu ahaa sidaan oo ahaa sawirkan. Asalkiisa sidaan oo ahaa sawirkan. Asalkiisa saas oo ahaa. Haddana waxaan ka dhignaa ujeedaa waxaan ku darnay effectyadan aan ku darnay wuxuu isku bedelay qaabkan uu noqday. Marka sida loo sameeyaa sawirada noocan iyo qoraalada noocan oo kale. Marka waxaan ku baran doonaa video aan ku baran doonaa. Channelka hadda ku cusub tahay saaxiib noo subscribe garay, like noo saar aad oo mahadsantahay. Sawirkan aan iska stiro kadib marka waxaan soo gashanaa sawir cusub. Waxaan soo gashan doonaa sawir cusub. Waxaan tagaa halkan sawirka aan ku shaqeyn doonaa soo gashan rabaa. kadib waxaan tagaa halkan waa ka sawirkan waa sawirka aan ku shaqeyn doono. Marka waxaan sameyn doonaa haduu Ilaahay ka raali noqdo sawirkan copy aan ka sameynaynaa control J marka laba duplicate aan ka sameynay kan koowaad waxaan bixin doonaa R1 aan u bixin doonaa kan labaadna waxaan u bixin doonaa R2. Okay hadda ujeedaa labadan waxaan sameynay sawirkan soo gashanay labadan duplicate aan ka sameynay kadib waxaan sameyn doonaa waxaan ku hormari doonaa midka R1 ku qoran waxaan leeyahay right click kadib waxaan tagi doonaa blending option halkan markaan imaado sidaan ay soo bixi doonto. Marka sidaan ay soo baxdo waxaan sameyn doonaa halkan ay ku qoran tahay journalist ayaa waxaan tigta ka qaadi doonaa labadan meeshaan hadda waxa waa RGB ku qoran waa colorska waay R ta u taagan oo red iyo G da u taagan green iyo B da u taagan blue. Marka waxaan ka tiri doonaa labadan color aan bixin doonaa oo green iyo blue ga kadib waxaan leeyahay okay. Intaas markaan sameeyo waxaan ku laaban doonaa qaybta R2 da kadib waxaan leeyahay right click blending option kadib wuxuu igu celin doonaa layer style kadib meeshaan markuu na keeno haddana waxaan sameyn doonaa waxaan tigta ka qaadi doonaa R ta kadib waxaan leenahay okay. Saas markaan sameyno weli waxba isma bedelin kadib waxaan sameyn doonaa control T markaan sameyno amba scale sameysid waxaa arki doontaa wax yar aan qaajinayna sawirka waa isbedela ujeedaa qaab ahaan waa isbedeli wuxuuna noqday 3D glass effect kadib markuu saan noqday waa qaabka aan u rabnay saan waaye. Sawir kasta ku sameyn kartaa thumbnail-nada waa aragtay oo YouTube la geliyo qaabkan inta badan dadka qaar saas u sameystaan. Marka sawirka qaabkan aan u sameynay textigana sida loo sameeyaa asina marka dheero waa isku ag dhow yihiin kadib waxaan sameynaynaa halkan waxaan ku qoraynaa xaraf scaffold scales aan ku qoraynaa meeshaan kadib sawirka waa weyneynayna sawirka markaan weyneyno okay inta noo dhig colorkiisana waxaa noo dhigtaa white asigana nafsi shay waxaan ku sameynaynaa duplicate markaan ku sameyno kadib waxaan ku sameynaynaa waxaan ku sameynaynaa qaybtan asana waxaan bixinaynaa R1 qaybtan waxaan bixinaynaa R2 okay. Intaas markaan sameyno qaybtana tagaynaa processka daa amar leen marayna waxaan tagaynaa blend option kadib waxaan kasii tagaynaa waxaan tigta ka qaadaynaa kaliya green iyo blue kadib okay kadib ku soo laabo R2 markaa ku soo laabatid haddana isla meeshii ku laabo meesha markaa ku laabatid haddana waxaad bis ka qaadaysaa R ta ka qaad okay kadib control T dheh wax yar marka dhaqaaji waa ka ujeedaa very simple qaabkaas loo sameeyaa 3D glass effect image and text labadaba waan ku sameynay waxaan rajeynayaa in si fiican ugu faa'iidaysteen aad u mahadsantihiin channelka subscribe gareeya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.